Waxa isa soo taraya khasaaraha ay geysteen roobabkii dabaylaha watay ee dhawaan ku dhuftay deegaanada Puntland. Warar cusub ayaa soo baxaya oo sheegaya dad badan oo xoolo dhaqato ah oo deegaanadaasi ku dhaqnaa in xoolahoodii ay baaba'een kadib markii daadad soo rogmaday ay dhibaato u geysteen duunyadii halkaasi ku dhaqanayd. Haddaba warbixin aanu idinkaga diyaarinay arrimahaasi oo aanu ku wareysanay qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ayaan idiin soo gudbinaynaa iyagoo faahfaahin doona khasaaraha soo gaaray inta uu la eg yahay iyagoo sidoo kalena wariyaasheenu ay soo bandhigi doonaan dhibaatadii soo gaartay xoolihii ku baaba'ay halkaasi. asire barbo wax yar baana ka haray waxaan dawladda ka codsanayaa aqalla ima harin dawladda sigtay dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaan mas'uuliyadda inaan hadii la qadariyo aragtir soor in la soo gaaray baan soo gaaray wax kale oo soo gaaray ma jiraan arigii aan haystay arig afar tira buu ahaa afar reer baan ahaa aniga iyo laba wiil oo aan dhalay iyo gabar walaashay baanu ahayn arigii afarta tira ahaa oo afarta reer ahaa tira noo dareeday saddexda kale waa deganta xoolaheena biyo la tago bad baa ilaahay waxa weey xoolihii waa kuwaas umadiina roobkaas alla uu keenay xoolihii waa laga cayroobay waa baabeen hadda xoolihii aanu haynay intaas ma ahane wax yar baa dareeray xagga jira waa kuwaas xoolihii xaggana waa yaali